isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Saraar Maxamed Tama Ciise ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa magaalada Caynaba waxa uu qayladhaan ballaaran ka muujiyay xeerayaasha sida sharci darrada ah ay dadku ugu xidheen cawskii iyo waxyaabihii xooluhu daaqi jireen ee dhulka ku sii hadhay oo ay dad gaarihi ay si sharci darro ah u xidheen. Isuduwaha wasaaradda horumarinta reer miyiga ee gobolka Saraar waxa uu sidoo kale ka hadlay biyo la'aanta baahsan ee ka jirta deegaamada gobolka Saraar iyo sida loogu baahan yahay waqtigan in gacan buuxda laga geysto sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadaasi ay deegaanka ku hayaan dadka sida gaarka xoolihii uga xidhay cawskii ay daaqi lahaayeen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore guud ahaan gobolku nabadgelyadiisu aad iyo aad u wanaagsan tahay. Marka xiga waxaa ka jira gobolka abaaro xilligii gu'ga dib u dhacay xooluhu haraad iyo haddii lagu kuuran yahay baa ka jira gobolka biyo la'aan celash iyo ka fogaaday oo xoolihii iminka gaadhi waayeen itaal darayeen ayaa ka jira gobolka. waxaa kaloo ka jira dadkii xidhmooyinka wadan jiray sarayaasha gaarka loo leeyahay oo sii tiro badanaya oo markii dhulkii xaalufay qof waliba meeshii yaro caws iyo yaro jirid ay ku tilay oo ku wareejiyay oo uu ka celinayo xoolihina ay wareegayaan buuraha iyo meelaha aan daaq dooxooyinkiina waa la xidhay meelaha meeshii daaqi lahaydna qof baa xidho aniga ale oo qayladhaanta biyo la'aanta ay kasoo yaaraysa tuulooyinka iyo degmooyinka fogfog aad ugu rajoonahay in waxaana laga qabto seerayaasha oo ay wadanayaan dadka gaarka loo leeyahay oo aan dee wax sharci xadkii ka baxay dhibaatooyin waxa ay ka dhacaan seerayaasha gaarka loo leeyahay oo xoolihii haraadan ama ceelkii ku socda ama daaqii ku socda ayaa la leynayaa. sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta reer miyigu waxa uu ammaan ballaaran u soo jeediyay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo tilmaamay in muddadii koobnayd ee xilka wasaaraddaasi hayeen in wax la taaban karo oo muuqda ay ka qabteen wasaaraddaasi horumarinta reer miyiga. marka aad iyo aad waxaan ugu rajoonayaa wasiirka wasaaradda horta halkan ka hadlaynaya oo shaqo fiican iyo agaasimaha guud Maxamed Faarax Xirsi oo aad intii ay gacanta ku qabteen wasaaradda aad ay u soo firfircoon ay ka muuqato shaqadooda. waxaan rajeynayaa in sanadka cusub si aan ku ballansanay oo noo furo iyo anaga noo dhaxbiga xafiiska wasaaradda gobolka. Jaamac Boodacde TV qaranka Somaliland Caynaba.